بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنو وناكسن داوديال إذا لهان تيم بملك توس دنيا كجوكتان كل سودو هذا وررك فيد وناكسن وحنا هاي فيصل ليجو قضبض وررك فيد وناكسن ودر كرهنا وحا كمدا دقاتيرتي كنياتا هوسبيتال لو مركا لقلين كو سمين دونو سوسن نكاسا kooxuhu waysan oo Muqdisho ku dhaawacay law wiilo dhalinyaro iyo saraakiil ka kala socoto Kuuriya oo mar kale kulmaya qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan wararkeena fiid wanaagsan haatan u diyaar garoow ayayo faahfaahsan dhaqaatiirta Kenyatta Hospital ayaa mar kale qalliin ku sameyn doona Susan Nakesa oo maalin ka hor ay qalliin ku sameeyeen dhaqaatiirta ka howlgashay isbitaalka qaran ee Kenyatta Hospital ayaa sheegay in toddobaadka dambe ay qalliin ku sameyn doonaan Susan Nakesa oo maalin ka hor ay dhaqaatiirta isbitaalka ku sameeyeen qalliin wax u dhimay caafimaadkeeda shalay ayay ahayd markii uu maamulka isbitaalka qaran ee Kenyatta Hospital uu raaligelin ka bixiyay dhaqaatiirta qalliinka ku sameeyay xibnaheeda ama uur ku jirto Susan Nakesa ayaa sheegtay in dhaqaatiirta isbitaalkaasi ay dhibaato u geysteen uur ku jirkeeda xilli ay sameynayeen qalliin isbitaalka Kenyatta National Hospital ayay ku eedeysay habacsanaan maadaama sida ay hadal ku dhigtay talaabadaasi ay saameyn caafimaad ku soo gaartay qalliinka ee haweeneydani ka cabanayso ayaa imaanaysa iyadoo weli la hadal hayo qalliin aan habboonayn oo dhaqaatiirta Kenyatta ay bukaan kale ku sameeyeen kooxuhu hubaysan ayaa magaalada Muqdisho ku dhaawacay law wiilo dhalinyaro sida ay warkan nooga soo dirtay degmada Walaweyn Raxiima Yuusuf Maxamed Rasmi Ruuxi kooxo bistoolada ku hubaysana ayaa habeennimadii xalay ahayd xaafada Soonagey ee degmada Hodon ku dhaawacay laba wiil oo dhalinyaro kuwaasi oo kamid ah dadka xaafadaasi dadka deegaanka ayaa ku waramaya in rag falka geystay ay yihiin rag burcad ah oo xiliyada habeenkii dadka deegaanka ka dhaca taleefanada gacanta iyo agabka kale ay wataan waxaana ka hor inta aan la dhaawicin labadan dhalinyaro ayaa laga qaatay taleefanadii gacanta mid kamid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa dawladda ka codsaday in ay wax ka qabtaan xaaladda amni ku soo kordhaysa xaafada Soonagey ee degmada Hodon waxa dhacday muddo 3 saacadood laba toban dhiman Soonagey xaafada Soonagey K2 oo labada darbi meesha loo yaqaan laba wiil dhalinyaro ah ay laga qaatay mobile midna basar amrax laga dhigtay midna tooley laba nin oo dhalinyaro oo tuugada burcad ah oo ilaa xaafada halka ka jiray oo mobilada la qaadanayo xabadaha ka dhacay waxay la garanayo dadku ay ka yeelan garanay marka maadaama dadka xaafadaas aan deganahay dhibaato badan ayaan ku qabnaa jidka labada darbi mobilada la qaadanayo dadka maaragtay quracada wax isbaalaysanay waxba loo qorastaa labada loo qaaday labada istaalo la qaaday xalana sidoo kale waxay mid jiraan ay wajirtaa gudaha muddo 4 bilood hore gudaha u soo dhacayeen oo habeenada xilliya dambe laakiin hadda waxaa badan mobilada la qaadanayo والله واحد deegaan ma sameyn jaacada ayaan u baahan intaas waxaan kala kulmay in dad dhalinyaro sidoo gaartay dhalinyarada iskoolada dhigata mobiladii laga qaadanayo iyo laptopyada marka waxaan ka codsaynaa dadka aqliga saaxiibka u ah oo nadigisanay inay wax ka qabtaan oo amaanka Raxiima Yuusuf Maxamed Rasmi Ruuxi wararka fiid wanaagsan degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xiisada siyaasadeed kala hadlay wasiirro iyo xildhibaano warkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Soomaaliya kulan kula qaatay wasiirro iyo xildhibaano ka kala tirsan labada gole ee dawladda isaga oo kala hadlay xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha oo tan iyo markii uu khilaafkan soo ifbaxay aan si toos ah uga hadlin ayaa kulamo hoose la yeelanaya mas'uuliyiinta ay arintan qusayso gaar ahaan xubnaha ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada isaga oo dalbanaya in khilaafka lagu soo afjaro hab sharciga waafaqsan loona maro dariiqa uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanka waxa muuqanaya in madaxweynuhu meel iska taagay khilaafkan ka dhax aloosan golaha fulinta iyo sharci dejinta isaga oo dalbanaya in mar walba la ilaaliyo sharciga iyo nidaamka madaxweynaha ayaa horay kulamo arintan ku saabsan ula yeeshay guddiga ka socda aqalka sare guddi ay iska soo xuleen haweenka xildhibaanada ah
ee ku jira golaha shacabka ra'iisul wasaaraha gudoomiye Jawaari iyo xubno kale wuxuuna dhammaan dhinacyadan u xaqiijiyay in madaxweynaha mowqifkiisa la xiriira mooshinka xildhibaanadii la kulmay madaxweynaha qaarkood ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in uu kala hadlay oo kaliya in khilaafka taagan lagu dhameeyo hab waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka taas oo muujinaysa in dariiqa furan uu yahay oo kaliya in cod lagu kala baxo aqalka sare ee Soomaaliya ayaa guddi u saaraya dacwadda weerarkii lagu qaaday guriga Senator Cabdi Qaydiid afakaada Maxamed Axmed ayaa warkaasi noo qaada dhigayo xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho si ay guddi ugu xilsaaraan weerarkii lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid xildhibaanada aqalka sare ayaa sheegay in guddigan ay haystaan muddo kooban oo maalmo kadibna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada baaristaasi guddigan ayaa soo baari doona weerarkii lagu qaaday guriga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid senatarada aqalka sare ayaa horay ugu ansixiyay in guddi loo saaro kiiska balse Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid ayaa sheegay in uusan kalsoonay guddi uu horay u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo afkaada Maxamed Axmed wararka fiid wanaagsan Nairobi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb gashay bandhiga dhaqanka oo lagu qabtay dalka Masar qodobkaasi oo faahfaahsan waxa inoo haya Sadiiq Maxamed Kilaas waxaa toddobaadkan magaalada Qaahira ee dalka Masar lagu soo gabagabeeyay bandhiga dhaqamada ardayda wax ka barata dalkaasi oo ay Soomaalidana qayb ka tahay arday ka kala socotay dhowr iyo 20 dal oo bandhigaasi ka qayb galay ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday ardayda Soomaaliyeed oo halkaasi ku soo bandhigay ciyaaro hiddo iyo dhaqan ah dhar iyo alaabada laga adeegsado miyiga iyo magaalooyinka Soomaaliyeed dhalinyaro ku labisan isla markaana lulaya calanka Soomaaliya ayaa goobta wacdara ka muujiyay iyadoo qiimeyn la sameeyay ay Soomaalidu ka gashay kalimaha ugu horeeya bandhig dhaqameedka ka dhacay Qaahira bandhigan oo ka dhacay jaamacadda 6 Oktoobar ee Qaahira ayaa waxaa u soo daawasho tagay kumanaan dad ah oo isugu jira dadka deegaanka Qaahira safiiro kala duwan iyo arday kuwaasoo aad ula dhacay bandhig dhaqameedka gaar ahaan wacdarada ay muujiyeen ardayda Soomaaliyeed safiirka Soomaaliya oo fadhiya Masar ambassador Cabdiqani Maxamed Wacays iyo u qaybsamaha waxbarashada Maxamuud Gowgowle oo munaasabadaasi goobjoog ka ahaa ayaa waxay bogaadiyeen kaalinta ay ka qaateen bandhig dhaqameedka ardayda Soomaaliyeed waxayna kula dardaarmeen inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda dawladda Congo ayaa ku eedeysay qaramada midoobay inay sawir qaldan ka bixinayso dalkaasi Siciid Gadaf Galeyr ayaa warkaasi noo haya dawladda Congo ayaa ku eedeysay qaramada midoobay inay sawir qaldan ka bixinayso dalka sidoo kale arintani ayaa caqabad weyn ku noqon karta maalgashi lagu sameeyo dalkaasi kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Congo Joseph Makila ayaa sheegay in dalka uu wajahayo xaalad adag balse jawaabtii qaramada midoobay ka bixisay ay tahay mid niyadjabinaysa maalgashayaasha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo way diiday inay ka qayb gasho shirka Geneva ayuu yiri Makila waxa uu sidoo kale sheegay inaysan ka qayb gali doonin shirka bixiyaasha ee ka dhacaya magaalada Geneva qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 13 milyan oo reer Congo ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo waxa ay qaramada midoobay qaban qaabisay kulan heer sare ah oo looga hadlayo xaaladda bini'aadanimo ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo kaasi oo 13 bisha Abriil ka dhici doona magaalada Geneva dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa qani ku ah macdanta iyo kheyraadka kale balse waxa dalkaasi ragaadiyay dagaalo musuqmaasuq iyo xasarado siyaasadeed Siciid Gadaf Galeyr wararka fiid wanaagsan ugu dambeyntiina daawadayaal saraakiil ka kala socota Kuuriya ayaa mar kale kulmaya waxa warkaasi noo dul istaagaya Gorod Maxamed Cali Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay inay kulan heer sare ah la qaadato ergiga ka socda Kuuriyada Koonfureed toddobaadka soo socda xukuumadda Seoul iyo Pyongyang ayaa 3 saraakiil sarsaraha u dirtay tuulada xadka ku taal ee Binjamjon kulankani ayaa lagu wadaa inuu qabsamo 20 bisha Maars kaasi oo ahaa wada xaajood wadada loogu sii xaarayo shirweyne la qorsheynayo inuu dhaco bisha Abriil ee soo socota arintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo bisha soo socota ee May lagu wado inay kulamo heer sare ah yeeshaan madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un wali lama sheegin goobta uu ka dhici doono kulanka lagu wado inuu dhex maro madaxweyne Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi labada Kuuriya ayaa isku soo dhawaanaya tan iyo wixii ka dambeeyay ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay dalka Kuuriyada Koonfureed ergiga ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa markii ugu horeysay muddo 3 sano ah waxa ay booqdeen horaantii bishii Pyongyang iyagoo kulamo la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi
gorod maxamed cali wararka fiid wanaagsan magaalada Nairobi qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay daawadayaal wararkeennii fiid wanaagsan waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaan warkeena kan xigo kulmi doono waa dhammaan bahdii qari joqdo idin leh sidaas iyo amaana Allah